wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland mudane Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garowe ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka Sool hadallo ka soo yeeray maamulka Soomaaliland iyo isdhexgalka bulshada Puntland iyo Soomaaliland. ugu horeyn wasiir Qarjab ayaa sheegay in Puntland aysan cidna duulaan ku ahayn ayna ka go'an tahay difaaca xuduudaheeda dastuuriga ah. reer Puntland cid weerari mayaan, cid dalka qabsan mayaan, cid abuyus gareyn mayaan, gobollo reer degan yihiin kuma socdaan, laakiin goboladoodii ayaa waxa la rabaa qori in lagu qabsado. dad dhulkiisa degan oo Soomaaliya markay burburay dadku isidba u burburayeen gobollo kale inay qori ku qabsadaan rabo waxay dad aan rabin inay Soomaaliya ka go'aan oranayaan xoog baan kugu gooynaya oo xoog baan kugu qabsanaya oo marka qaarkood waliba ay hadlaan ay oranayaan dawladda Soomaaliya waxaan uga go'nay dhibaatana loo geystay iyaguna hadda raba inay dad dhibaateeyaan oo xoog ku qabsadaan dad Soomaali doonayo aan Soomaali ka go'ay hadda Soomaali ka go'aysaan oo inaan Soomaali rabin waxa weeye gobolka Togdheer Hargeysa iyo Berbera ayaa degan tahay dadka isirkaas leh ku ekaadayada. sidoo kale Cabdi Xirsi Cali Qarjab wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland ayaa beeniyay in Puntland ay wada hadal kula jirto Soomaaliland si loo kala qaado ciidamada ku sugan Tukaraq isagoona sheegay in aysan wax gorgortan ah ku gali doonin dhulka Puntland. waxay leeyihiin wada hadal baa Puntland noo socda, Puntland ma naqaano dawladda federaalka waa nala dagaalamaysa xagee bay la hadlayaan waxay haway la hadlayaan mise dad bay la hadlayaan dawlad federaal halkan ka dagaalami mayso mana joogto. Saacad Cali Shiraan maqlayay oo la Puntland wada hadal baa noo socda kulka Puntland cid laga hadlayo iyo cid wada hadal uga socdo iyo cid laga wada hadli doono ma jiro. ninkii wada hadal rabaa gurigiisa ha tago kabacdi wixii laga wada hadlaya. ugu dambeyn wasiir Qarjab ayaa sheegay in aysan qaramada midoobay iyo cid kale gorgortan kula galeyn dhulka Puntland. adeer dhulka iyaga anaga qaramo midoobay iyo gadi cid kale cidna dhulka iyaga gorgorta kala gali mayno. waxa weeye qaramada midoobay dhulna nagama soo weerarin, qaramo midoobayna dhul nagama haystaan. waxa dhulka iyaga soo weeray waa jeegaan iyo niman Mooryaana waxa weeye qaramada midoobay cid kalena wax wada hadal oo anagu ay leeyihiin dhulkiina jeegaan iyo maartay Mooryaana haysto cidna ka yeeli mayno. ha ka baxeen gobolka Sool dhulkooda ha tagay iyaga ku wada hadlayna wixii kale oo dhacay markaasina. Maxamed Jaamac, Somali News TV, magaalada Garowe.